buuhoodle waxaa maanta soo gaaray wafti uu hogaaminayo taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka daraawiishta Puntland Jarnaal Deer Xaaji Cabdi oo dhawaan kaga dhawaaqay magaalada Garowe inuu iska casilay xilkaasi kadib markii uu sheegay inuu dayaclaan soo food saartay ciidamada daraawiishta Puntland. waxaa ka qayb galay soo dhaweyntiisa saraakiisha ciidamada daraawiishta buuhoodle ku hubaysan gaadiidka dagaalka waxaana madashii lagu soo dhaweynayay taliyahan ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada buuhoodle oo sheegay inay taliyaha ay garab taagan yihiin musharaxnimadiisa uu ku dhawaaqay oo xilka madaxweyne ku-xigeenka Puntland. waxaan maanta cadeynayaa aad baa ugu faraxsan waliba waa nin aqoon leh darajo garbaa la saaraa akademi weeye buuhoodle waxay ugu dambeysay baan u malnay arooskii madaxisku ka ahaa ma garatay markuu taliye xogeenka ciidanka daraawiishta koowaad Jarnaal Deer oo aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa taliye waliba mabda iyo hadafka aad qaadatay baan kugu soo dhaweynaynaa iyo go'aankaaga waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba taliye ku soo dhawow gobolka Cayn ciidanka daraawiishta aaga Cayn adigoo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxaan ku waanbalyaynaa waxaan kaa codsanaynaa haddaad madaxweyne ku-xigeenka weydo inaadan Soomaaliland iyo cadowga Puntland u kicin aad garab naga dhigtaan garab ku noqon waxaan kugu soo dhaweynay ragga aad xumaansateen inay ku arkaan inaad meel aad ka timid gobol nool oo dadkiisu nool yahay oo ciidankiisu nool yahay aad u dhalatay inaad leedahay baanu tusaynaa dadka talabaadna waxa weeye dhibaatada ku haysataa annana waan haysataa ciidanka daraawiishta buuhoodle jooga wax xuquuq oo haba yaraatee loo keena ma jiro xuquuqdiisina waxaa lumiyey rag dana gaara leh ayaa xuquuqdiisii lumiyey hadday taakulayn tahay rag gooniyaa haysta hadday qori tahay rag gooniyaa haysta ciidankiina waxaa la yidhi halkaas waa fadhiid oo halkaasu fadhiyaa ciidankii ku soo dagaalamay deegaankan waxaa lagaga warbixiyey ciidankaasi waa fadhiid oo waxba ma ogola haddaba waxaan u sheegaynaa inaanaan fadhiid ahayn ciidankii gobolkan difaacay aanu nahay waxaanina inay iska dhammaan doonaan laakiin kuwii Puntland dhistayna aanu nahay ayaa farxad ii gelisay farxadaana weligeed ilaawi karin weligeena ma ilaawayo meelaan tagaba ma ilaawayo farxaddaasi maxay tahay ciidankii daraawiishta Puntland ee gobolka Cayn oo shirsan madaxdiisii oo dhan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta la kulmo madaxdu kale waxay maqashay inaan iska casilay xilkii aan u hayay ciidanka sababta qudhiina intiina badan waa garan kartaan laakiin ninka aan garanayn ayaan rabaa inaan u caddeeyo waxa weeye ciidankii Puntland waa baaba'ay waa burburay sabab u burburay haddii maska madaxa laga dilo soo dhiman maayo ciidankii Puntland waxaa laga dilay taliskii guud taliskii baa laga qabay meeshii taliyaashu joogeen ee hoggaamadu joogeen ee waaxuhu joogeen ee laamuhu joogeen ayaa waxaa laga dhigay dabka la saaray nimankaasaa ku talagalay laakiin kamay macaashin waa looga wada tegayaa berigii dhaweeda uu yimid ninka la yidhaaho madaxweynaha farmaajo uu Garowe yimid ciidankii Puntland taliska joogay baanbooydi baa la garaacay dhaw 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 markaasaa madaxtooyada la wadiiray war waxaas maxay yihiin ayaa madaxweynihii yidhi markaasa yidhaha waa xertii timaweynto durbaan tumanaysa in loo yimaado taasna halkaasaa lagaga baajiyey arrintaana halkaasaa lagaga baajiyey anigu ka tegiddeydii waxaan soo maray taliye hurin abbaandulo urur taliye urur abbaandulo guuto taliye guuto abbaandulo gaas taliye gaas intaa weligeen ma dhicin xeradii aan xukumay albaabka laga xidho waa kow konton iyo afraad baa albaabka laga xidhay
maxaa layga xidhay waxay idhi haddaan waxba noo kari karin naga tag qofku han buu yeelan karaa han ayuu yeelan karaa waxaan rabaa hankayga inaan marnaba dib hoos u dhigin hankayga maanta waxa weeye inaan noqdo madaxweyne ku-xigeen waftigan balaaran oo hogaaminaya loo soo galbiyay magaalada Buuhoodle markii dambe waxaa inta badan lagu soo wareejiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Buuhoodle hareertumay dadweynaha deegaanka Buuhoodle kuwaas oo taliyaha ku soo dhaweeyay gacmo furan taliye ku-xigeenkii hore ciidanka daraawiishta General Deer Xaaji Cabdi ayaa kulamo waxa uu markii dambe hotelka weyn ee Cabdiguri Balance Buuhoodle kula qaatay waxgaradka deegaanka Buuhoodle ee saraakiisha ciidamada waana musharaxii koowaad ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ah madaxweyne ku-xigeen oo la hadda shaaciyeen xulkaas uu tartamayo waa Cali Cismaan Facalo Dhajar wararka telefishinka caalamiga Ismail News magaalada Buuhoodle